waxyaalo fara badan oo aan la bixin jirin intaasoo cashuurada 16 cashuurooda kala gooni adduunka ka jira waxaan maanta dadka weydiinaynaa waa 3 cashuurood weey aan isla fahanno 3 cashuurood weey mid waxa weeye waxaad gadayso ee ummadda Soomaaliyeed ka gadayso ee aan quutu daruuriga ahayn waan ku celinayaa sonkorta iyo bariiska iyo baastada iyo burka iyo waxyaalaha saliidda waxyaalaha cuntada aan ahayn oo waxba laga qaadin imika waxba laga ma qaadin horna waxba looga ma qaadin wixii aan waxa ahayn ay telefoonada qaaliga ku jiraan ee kamarooyinka qaaliga ku jiraan ee kombiyuutarada ku jiraan ee bullet proof ku jiro ee gawaarida xaragada ku jiraan waxaasaan leenahay aan isku dayno in cashuur ka qaadno haddaan idin sheego waxa laga qaadayo qaanuunkeenu wuxuu leeyahay waxa marka value sar qiimihiisa leeyahay wax walba qiimo leeyahay qaanuunkeenu wuxuu leeyahay qiimihiisii ayaa shan lagu dhufanaya boqolkiiba ya marka boqolkii dollarba $5 ayaa ku waajibay qaanuunkeenu weey marka hore sida tahayba wax weyn ma maanta sida wax loo qaadaan idin sheegaya maanta sida wax loo qaado waxa soo alaabo imanaya maanta sida wax loo qaado kartoon ba wax lagu qaado kartoon yar iyo kartoon weyn hada si fiican aan isku fahamno kartoon yar iyo kartoon weyn kartoonkiyo wixii ku jiraan haduu dacas ku jiro iyo haduu dahab ku jiro leena bariyada ay kamid tahay ya dawladdoona adkayn bay kamid ahay wixii kastaa ku jira kartoon kan tirinayaa intaasoo kartoon $3 ku darbiyo intaasoo lisiyoon baahay $3 baa ugu weyn kartoonka weyn ee 40 kiilo qaada 40 kilogram buu qaada ayaa la oran $3 keen ya ka koobiyo 10 from 0 to koobiyo 10 waxa laga qaadi $1 iyo bad hada wuxuu doona baa ku jiraan ma soconaysa sidaas ma socon adduunka meel ay ka socotaana ma jirto adduunku waxayna leeyahay nimayow ama dad adduunka la tis qaada oo waxa adduunku ku shaqeeya ama naga leexda ayaa adduunku leeyahay waana ka dhaweeyaan waana habkaas sidaas waxaan leenahay marka boqolkiiba 5 kuma xukumaynaba leeyahay soo qaanuunku boqolkiiba 5 maaha anaga waxaan leenahay walaadayimka waxaan idin sheegaya halkan waxaan ku hayaa waxa dekada yaal ayaan ku hayaa example baan idin ka siinaya kartoonka uu ku jiro 800 oo kun alaabihi oo telefoonna 800 oo kun baa ku jira $3 baa laga qaadaa ilaahay baan ku dhaariyo xaq miyay taas waxaan weydiinaa ummadda Soomaaliyeed baa weydiinaa xaq ma tahay alaab meel ku jirto oo 800 oo kun milyan ka yar baa ka dhiman in $3 laga qaado xaq miyay tahay ma sidaas meel lagu gaari kare maayo waxaan leenahay marka niyo hadii 800 oo kun qaanuunku wuxuu leeyahay boqolkiiba 5 naga sii boqolkiiba 5 intay noqonaysa waa garanaysa walaalayaal boqolkiiba 5 imika idinka qaadi maynee oo de dhibaato bay noo iman ya waxay ka qaadeen wax inta aad uga yar 800 kun ayaa waxaan ka soo qaadaynaa $800 $600 baa naga siinaysa meeshii $800 sideedii kun ahayd waxa bixinaysaa boqolkiiba 20 maan ku dhufanaynaa kun iyo waxay noqonaysaa $600 baan shantii ku dhufanaynaa waa $8 weeyaan halka $3 naga siin lahaydeen $8 naga siiya noor caadatan waxay noqon lahayd inaan value wax ku dhufano boqolkiiba 5 nimayo haddaydan fahmin qolada media inaan isfahminaan doonina dadka Soomaaliyeed ka dhaadhicisaan waxa value yahay itemka ayaan boqolkiiba 20 ku dhufana soo yareynayna boqolkiiba 20 ma ku cashuurayna boqolkiiba 20 kaasuun 50% kii noogu dhufamaan wax aad u yaran cidna waxba yeelay weey waxaan lacagta weydiisanayna waa ummadda Soomaaliyeed macnaheedu wuxuu yahay waxa weey shaar hadaad iibinayso eegad niyo baayac mushtari oo shaar hadaad iibinayso oo $20 yahay $50 noogu dar wax ka yar oo la isweydiiyay ma jiraan ma iska dhaafnaayo marka dawr ma ku noolaanayo meesha ma iska xidhnaa ma iska ka tagna ya arintu horta saasay tahay waxa la diidan yahay ana waxaan u malaynayaa dhibaatada inay tahay annaga iyo dadka wanaagsan ee soo dejiya muxuu alaab soo dejiya ee aanu xalay sida wanaagsan isku fahmay waxba na kala dhex taagan